koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dalka madaniyo huwaaga tarinaya hawsha malaweeyeedhaylalamay hadaadideolodila meerayso waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysa ila meeraysadii way soo dhammaanaysa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanan noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay low waranagu horanu goonee aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duceeyay allay leedahay مرحب يا رمضان ودع يا كلمان مرحب يا رمضان ودع يا كلمان bishaan barakaysan bandooga nasaaran la noo badiye allowna badbaadi مرحب يا رمضان ودع يا كلمان karoona hafaafay kurbowna gelshe kadiyad dhibaato allow naga kaafi مرحب يا رمضان ودع يا كلمان bugtii bacdiiyo balaayo qarhayso bulshada dhammaanteed allow ka badbaadi مرحب يا رمضان ودع يا كلمان waryaaya barnaamijka kalamaan bishaan waa wadacdaane xaggee baad u baxdaan war waa halka bilo ay fasaxan yihiin anta kale adinkin hiriirigna adigu ma basaas baataa waa maxay xaggeed u baxdin arbasbaas xaa kulayla aryaadaha wareerina bisha ramadaan kalamaan iyo bulshada waa kala nasaayaan siyaasiyiinta in kalamaan xamata ka cabsa jirana waa ka nasaayaan horta luuxanta luu xasuustaa gaweyn war siyaasiyiinta may baareena kalamaanay hoob isan shibarteen walaay ka falaana ka fiirsada koowdhe halsa ilan bedeli bandowgii warnimayahu dawladdu dadkii dhaqdhaqaaqii bay bandow ka saartay adinkuna ma barnaamijka ay dhagaysan jireen baad bandow ka saaraysaan ha dhegdhegaagin dab la hoogaa ku haya aan maqli jiray aryaadhahees wareerina horaa loo yidhi arag maqal afkana xiree hal bil kaliyahan idinka maqnaahaynaahe cabdullaw afgooyaad baad ka reebtaa iyadina lama aadi karo af male u baaburun waa ukun amal ungubaangubun wa warnimayo hadday madax tahay iyo hadday ciidan tahay iyo hadday bulshada caadigaa tahaba dadka muslimkaa waxaa lagu yaqaan bishaan barakaysan inay isu naxariistaan ayadaanna isu dardaarmayna alla ilaah waranlo waa sidaad u sheegtay waxaa la yidhi naxariis la'aan waa naarsahankeed ilaahay naariisa sheekh nuurudiin roobluhuurshow may baaray dadka safarka ah biyaha la siiya waa la gartay yaa badaraa ka go'ay ha loo beega waa la gartay yaa hadday maroodhinka ka yar yihiin ha loo badsha waa la gartay yaa xalla xuubsad intay ku taala manaan la jururucayn يأري الله إله ماذا يوحن شيخ نور الدين أنا كنا كحسوس دا كنقو كرين كاتوك كوين تيسان كو إيمان مقوده جريه والشيخ نور الدين أنا وحن كحسوستا كتشو كو هداترا كوا كولا كودات كوري أنا ما يبقى ياك حسوس داي كركو برميل وكبرو وكردي دواء كوري أنا وحن كحسوستا كدبنا وأكلت تجين عندنا ما هاد كبرور أطال شيخ نور الدين أنت أسوأ كلو كدرة كربية مجد كوريا هوس كركر سؤال هاد كوريا وحنا كل مية كدبنا وكتب جنات
ambase weeska karsame waraadhaha bandowgii taliyaha sheeg inuu yidhi hal saac oo habeennimaan ka dhigay taraawiix iska daaya cishanayaan loo hawoonaan u qaatay war wasiirka hore arrimaha dibadda yuusuf garaad wuxuu yidhi go'aan kasta oo lagu degdego ma fulaan u aqaana marka waxaan leenahay dib ha laysugu noqdo ha laga fiirsado war taliyaha sheegin nabadii nolol cidaan ahayn warka ma qaato war nabadii nolol furfuraa gale warka ma haysiina awal yaa xirxiray mala dhex gale maya wala isticmaali mabuudkaa lagula tunto hayehe ma laga jajabiyey war dadku waxay leeyihiin arbacii ciddu u hoggaansato waa uga dartaa ma talaaday ku tuuran war khamiisna haggeena warka naga dhegayso dadka marka lagu amray 2 saac inay tahay bandow waa u hoggaansameen waa ku soo durkeen hadda 1 saac ay uga dhigeen hadda cisho lama dukan karay hadda maraysaaye maqrib lama dukan karaa soo socoto war amar dawla mudiclan gadiidona dabaal waleeri war amarka dawladda lama diidane asagiyaa ka sii daraya alam tarana soo dhaaf miya war dadku waxay leeyihiin karoonahan maalintii aan la kala qaadin oo habeenkii la kala qaadayaa waa maxay war waxay dadku leeyihiin dawladnimada maamulka iyo dadweynaha yaa xeeri og war dadku waliba leeyihiin dawladtii shacab ya daraanjay tahgilidu waxay dadku leeyihiin madax waa tii shacabkeeda dhegaysata war waxay dadku leeyihiin dawladii waa tii il gaar ah ku fiirisa duruufta shacabkeeda war waxay dadku leeyihiin xaggeen ku noolaanaynaa haddii dawladdeennii ajaanib naga barbaryayso war dadkiina u naxariista maalin kasta lagu baryayo war dadku waxay leeyihiin boqolkiiba 50 dadku waa dan yar aan afur heli karine qofkii xaafadka la ka soo afuro siduu gurigiisa ku tagaa haddii bandow 1 saac lagu soo rogo waxay dadka dhahooyin jugjug meesha joog leh ma aho waxay dadku leeyihiin saan leh jamaa war waxay dadku leeyihiin waxaan bandow maana waa banad waxay dadku leeyihiin waqtigaanu dagnayn dabac baa la rabaaye xaggeen noo dirqiseen war waxay dadku leeyihiin ayaa kaalehe ha looga leexdo warna miya war mahaaytana jubbaland warsiin ku haaya may ka tiri war fuujada sheegas mee farhadii oo baho hayta ahmed midoow iyoonay lamadii nin oo madaxweynenimada ku qabsadeen seeraar iyoonay hidig heliyeen reeyo waxaan maqli jiray nirigtan hasha ha lagu heliyo waxay ku heliyeen he war waa heshiiyeen buu idin yidhi saddexdaa mas-uul maalmahanba wadahadala uga socda nairobi maantana labadii mas-uul oo xidig iyo seeraar waxay yidhaahdeen laga bilaabo maanta annaguna dadkaan dhinaceenna ka raacaynaa adigana alsayid axmed madoobow madaxweynahan kuwa aqoonsanna heshiiskaas meeqa qarashaa ku baxday kenya gacantay ku leed intay la ekeed nabadii nolol heliiskaas may ku erti yaa madaxweyne dani gacantaw ka geesta isagana intay la ekeed war qodobada ugu waaweyn ee lagu heshiiyey waxay kala yihiin in xukuumadda wadaaga uu soo dhiso axmed madoobe in beesha caalamka iyo dowladda federaalka ay aqoonsadaan in doorashadii axmed madoobe ay xaq ahayd war heshiiskaas kadib waxaan ka baqaa in wasiir qarafaan uu warqadiisii uu soo qufo war go'ooyin eegga heshiiskan kada waa taariikhiye soo dhoweeya aga alsayid axmed madoobe kolka way dhammaatay yaa ka daba hadli han ii haruubshe waa inaa koy heliile hal iniriga inaa koy heliine aryadaha aniguna waxaan maqli jiray shaleedeya shibleyhaade haddana shaleedeya arshiblayhaade war ma haysiina galmudug waxaa la yidhi war weynaa ka soo socda wadaadadii tushareena layfaa galeena arwarkaasi waa meeqa kiilo yaa madaxweyne qoorqoor maa xaaladda ku xumaata asoo 10 sano ku dartay muddaxileedkiisi nabadii noolo way u qaldameen miyuu yidhi war waxaa idinma sheegina warka naga sugoono dhegaysta waxaa la yidhi madaxweyne qoorqoor saacadaha soo socduu ku dhawaaqayaa golihii wasiirada xanta facebookga la wareejinayaana waxay sheegaysaa xildhibaanno waaweyn oo federaalka ah inay golaha wasiirada ka mid noqon doonaan koraa loo bixi jiray ma hoosaa loo dallacay madaxweyne qoorqoor wasiiradan la sheegaayo minowsan igu darin cirbad iyo dun isu geli mayso abdullow xildhibaannimo inoo kiinkoroyto la fada sababtoo ee walaal weydiiyey waran i gaashangu warxantu waxay sheegaysaa wasiirka amniga in laga dhigayo xildhibaan fiqi xildhibaan saabirna in laga dhigi doono wasiirka dekedaha hadda runku suga maxaad warka iiga boobtood been u sheegaysa haddaadan run haynin waa adiga madax ballaarane war caleemasaarka madaxweyne qoorqoor markii yuusuf garaad madax loogu dhigay ayaa iska caadeed in dad waaweyn wasiire noqonayaan war runku sugaa lagu yidhi yaa cadday ku yidhi aryaadhaha war ma haysiina wasiirka maaliyadda beyle wuxuu yidhi dayn cafintii waa beenowda miyuu yidhi mushaaraadkii miyuu kordhiyey anti karoona la sheegay gasnadoogana buusimeenga eray war guriga iga qabyaa miyuu yidhi aryaadhaha waxaan atiri haysan anigu idiinma sheegina wuxuu yidhi wasiir beyle dhaqaalihii hoosow u dhacay ma booramow ka soo dhacay warnimayow sharci yaqaano New York degan horta New York asalooti intay ka xigtaa
karoona ku fiday miyaa layidhi warwarka ay dhexgelinine waxay warqad soo direen madaxda dowladda Soomaaliya waxayna dhaheen waan la soconnaa xadgudubka saxaafadda lagu hayo war ninkii hela tala wacan hele may maqleen midowga yaruna waa kii hore u yiri xadgudubka saxaafadda lagu hayo hala joojiyo maalin dhaweydna waa tii wariyaashu bannaan baxeen war dollar iyo miimoota waa kii hore u yiri aaska dimuqraadiyadda waxa ugu horeeya saxaafadda madaxa bannaan war niyahow dollarkaad sheegayso nus dollarna kama hayno saxaafadduna waxay dhaheen wariye 45 casho wuxuu ku xirnaa aan la sheegin ayaa wasaaradda warfaafinta markay qaylada badatay waxay dhaheen shabaab oo ahay war wasaaradda warfaafintu saxaafadda ma inay difaacday shaqadeedu tahay mise inay dambi ku soo oogto war wasaaradda warfaafintu goormay xeer ilaalin isku bedeshay war wasaaradda warfaafintu goormay laamaha amniga kamid noqotay war wasaaradda warfaafinta ay andiri shabaabka war ma haysiine shabaab meel kasta in laga fiiriyo weeye koox shabaab la yidhaah ayaa Mozambique daraa 50 qofood ku dishaa la yidhi war al-shabaab oon al-shabaab loo helin laga adkaamaa war ma haysiin ambassador Awliyo xabsi ku yaala Iiraan ayuu wuxuu ugu tagay gabar Soomaaliyeed oo ku xiran gabadhaas waxaa la sheegay inay ku dhalatay Imaaraadka nin Iiraan oo ku guursaday kadibna oo dalkiisa la aaday kadibna oo iska furay kadibna dalkii ay ku dhalatay markii uu diiday xabsiga lagu riday markii geedi Soomaaliyeed meel kasta oo ku silxsatay adduunka war ma haysiine herbaraba waxay leeyihiin afkeena maxaa lagu diidayaa yaa saacakum iyo raasha gobaasha yaqaan hadde war waliba ereena qabari iza radio koonfur galbeed niisa kooda shimiiliba yeereen naqsula maxaatiri sulani maymaayi kooda shimiila niisi yeereen wala aqliile ningi yaka dareen hatane waxay kala dhaheen sidina isqan bluu aryaada af sawaaxil iyo afbaraa wa ilma adeermiya wariya afbaraa waa lahjad Soomaaliya dastuurkana waxa ku qoran afguriga in la xaq dhowro kolba unu diidni war dakada war ma haysiin kuntaar qamriga lagu qabtay dadkii wadini waa la baaraa la yiri maalin dhaweena dakadii ceel macaan qaadkii lagu qabtay dadkii wadi waa la baaraa la yiri war ma haysaane waxa la qabtay islaan qaraxyada u kaydisa al-shabaab oo yahay gurigeedu baqaar miino waa sidana loo sheegay shuuta ma loo geey war ma haysiin tartamada raadiyo kulmiye ka bixi doono kalamaanku suga bisha aan kala maqanahay war maamul goboleedyada mid kasta wuxuu leeyahay millinkii coronavirus nama soo gaarin waa leejalaan aryaadaha anigu warkaas ma rabe marxab ya ramadaan wadac ya kalamaan 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 bishii mawjade wadala daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeennani